kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka waa udub Soomaali TV qodobada warkeena aad ku daawado doontaan waxaa ka mid noqon doona wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya deegaanada SSC Qaatumi Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiyo oo si cad u sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay in Somaliland xeriyooyinkooda uu weeraro sidoo kale waxaan warkeena ku soo qaadan doonaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka SSC Qaatumi oo isku dhiibay ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan aaga Qorolugud wararka ugu dambeeya ee buuhooda ka imaanaya iyo daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa waxaa kale warkeena ku soo qaadan doonaa Axmed Madoobe oo Kismaayo ku soo laabtay ku soo laabashadiisa oo wax badan uu ka hadlay waxaa kale ku soo qaadan doonaa ciidamada dawladda Soomaaliya oo dagaalo ka dhan ah al-shabaab ka wada qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaano muhiim ah oo al-shabaab lagala wareegay wararkaasi warar kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka like iyo share iyo comment waa dhakiina aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena deegaanka Qorolugud ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan halkaasi ayaa waxa isku dhiibay hub aad u fara badan iyo sidoo kale ciidamo ay wateen ciidamadaasi ayaa waxa la sheegay inay isku dhiibeen maamulka Somaliland ciidamadan ayaa waxay yihiin kuwa SSC Qaatumi wararka ugu dambeeya halkaasi ka imaanaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamadani ay caro xoogan ay u qabaan madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiyo aaga Qorolugud ayaa mar kale waji cusub oo siyaasadeed yeeshay saacadihii la soo dhaafay waxaana wararkii ugu dambeeyay halkaasi aan ka helaynay ay sheegayaan in xiisadu ay aad u kacsan tahay kadib markii ciidamo beesha warsangeli ah ay go'aan ay ku qaateen inay Somaliland ay ku biiraan saacadihii la soo dhaafay waxaa socday dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ka dhan ah ciidanka Somaliland laakiin hadda aaga Qorolugud waxaa la sheegayaa in ciidamo fara badan oo ilaa 200 gaarayo oo beesha warsangeli ah inay isku dhiibeen iyaga iyo hubkoodaba ciidanka maamulka Somaliland ee xerada Qorolugud ku sugan xerada Qorolugud ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ka dhan ah ciidamada maamulka Somaliland ay wadeen oo ay waqooyi bari ay ku doonayeen inay ku weeraraan buuhooda ayaa sidoo kale yoolkooda ugu weyn uu yahay kadibna ceergaabo inay la wareegaan ciidamada maamulka Somaliland ciidamada maamulka Somaliland ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan oo ay ku doonayaan in deegaano fara badan oo maamulka waqooyi bari Soomaaliya dhaca ay ka qabsadaan ciidanka maamulka Somaliland oo horay gooja cad oo muhiim u ahayd laga saaray iyo deegaano kale oo dhowr ah oo dhaca waqooyi bari Soomaaliya ayaa markale yoolkooda ugu weyn waxa uu yahay inay gacanta ay ku dhigaan deegaanadaasi isla markaana deegaanadaasi ay noqdaan kuwo istiraatiiji ah wararka sidoo kale waxa ay itibaaxayaan daawadayaal in xiisadaha hadda jira ay u muuqanayaan kuwo saameyn fara badan yeelanaya xilli Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiyo uu si cad u sheegay in maamulkiisa marnaba uu gacmaha isa saaran doonin isla markaana ciidamada maamulka SSC uu amray in ay dagaal ay qaadaan furmo muhiim ah ay kala wareegaan maleeshiyada maamulka Somaliland ciidamada Somaliland ayuu ku yeeday Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiyo inay soo xadgudbeen isla markaana ilaa ay Qorolugud iyo deegaano kale oo buuhooda ka mid ah ay ka saari doonaan sida wararka aan helayno ay sheegayaan Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiyo ayaa yoolkiisa ugu weyn waxa uu yahay in uu talaabooyin adag u qaado oo ka dhan ah ciidamada maamulka Somaliland saacadihii ugu dambeeyay kulamo ayuu la lahaa qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka SSC Qaatumi saraakiisha ciidanka maamulka SSC Qaatumi ayaa yoolkooda ugu weyn waxa uu yahay inay mar kale dagaal ay galaan dagaalkaasi oo furmo muhiim ah ay kaga qabsanayaan ciidamada maamulka Somaliland ciidamada maamulka Somaliland ayaa xataa yoolkooda waxa uu yahay inay ceergaabo ay gacanta ay ku dhigaan haddii ceergaabo iyo sidoo kale buuhooda Qorolugud dagaal uu ka dhacana waxaa wararku ay sheegayaan in beesha warsangeli ay mar kale Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiyo in la safan doonin maadaama Cabduqaadir Firdhiyo ay go'aamo adag ay ka qaateen waxaana ay si weyn ugu eedeynayaan inuu ka dambeeyay dilka caaqilka beesha warsangeli ayaa hadda iskala qaybisay iyadoo sidoo kale ceel iyo gobolka Sanaag labadaba gobolba hadda ay u muuqanayaan inay ka baxayaan maamulka waqooyi bari Soomaaliya isla markaana ay ku biirayaan maamulada Puntland iyo Somaliland tanna waxay ka dhigan tahay in saameyn xoogan ay ku yeelanayso maamulka waqooyi bari Soomaaliya xaaladan adag ee hadda soo korortay maamulka waqooyi bari ayaa bilihii ugu dambeeyay
waxa uu waday abaabul aad u xoogan oo ka dhan ah ciidamada maamulka Somaliland. laakiin hadda beesha Warsangeli ayaa dhabarka ka toogatay Cabduqaadir Axmed oo Cali Firdhiye maadaama yoolkiisu ugu weyn uu yahay in dagaal la qaado isla markaana dagaalkaasi looga guuleysanayo ciidamada maamulka Somaliland iyadoo jiha kale oo dagaal ahna uu ku furan yahay oo maamulka Puntland oo ah maamulka Puntland ayaa iyagana waxay wadaan in ay dagaal ay ku qaadaan maamulka waqooyi bari Soomaaliya maadaama maamulkan ay u arkaan maamul lagu dhabar jibinayo maamulka Puntland. tanna waxay ka dhigan tahay xiisada taagan iyadoo xiisadahan isbiirsanaya ay u muuqanayaan in Cabduqaadir Firdhiye jahwareer weyn ay ku abuureyso maadaama maamulkiisa uu doonayo in uu guuleysto isla markaana uu talaabo adag u qaado. inkastoo Cabduqaadir Firdhiye horay qadka telefoonka ay ugu wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ka codsaday in ciidamo badan iyo sidoo kale hub la soo gaaro maadaama dagaal laba jiha uu ku furan yahay maamulkiisa. dhinaca kale daawadayaal Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii uu ku laabtay Kismaayo waxa uu gibi ahaanba ciidamadiisa uu amray in ay amniga magaaladu ay sugaan isla markaana ay ka shaqeeyaan sidii amniga guud ee magaaladu loo sugi lahaa xilli wafdi hordhac u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku wajahan yihiin. waxaa la filanayaa maanta wafdi hordhac u ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inay gaaraan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. wafdigan oo ka kooban saraakiil amni xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha ayaa gogol xaari doono soo dhaweynta madaxweynaha iyo kulamada heer sare ah ee lagu wado in halkaasi ay ka dhacaan. socdaalka madaxweynaha ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dib u eegista dastuurka. wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu maalmaha soo aadan uu tagi doono magaalada Kismaayo. magaalada Kismaayo ayaa hadda waxay noqonaysaa magaalo wax waliba ay ka duwan tahay maalmihii ugu dambeeyay inkastoo wararkii hoose ee khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh ee Axmed Madoobe wali uu taagan yahay. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in labada dhinac madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay kulankooda ku soo qaadi doonaan arrimaha siyaasadda oo muddooyinkii dambe xiisada ka dhalisay xiriirka labada dhinac. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay dib ugu laabato qaar ka mid ah go'aamadeedii hore ee ka qaadatay Jubbaland si loo burburiyo jawi wada tashi iyo sidoo kale xasilooni siyaasadeed. kulankan ayaa la filan doonaa inuu dhaco maalmaha soo socdo ayaana si weyn loogu dhursugayaa maadaama uu noqon karo mid furaha u ah dib u heshiisiin iyo sidoo kale dib u soo celinta wada shaqeynta dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland. dhinaca kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaan muhiim u ah maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa laga la wareegay degmada Owdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose. wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya degmada Owdhiigle ayaa waxay sheegayaan in saaka aroortii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AUSOM ay ku dheelmadeen halkaasi ugu dambeynna ka saaray maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. wararka ugu dambeeya aan helayna ayaa waxay sheegayaan in degmada Owdhiigle hadda ciidamada dowladda Soomaaliya gudaheeda ay ku sugan yihiin isla markaana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa tan iyo markii laga qabsaday Bariire iyo Sabiib Caanoole waxaa mar kale soconayo guluf ka dhan ah maleeshiyadan Al-Shabaab. inkastoo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu eedeynayo in uusan qayb ka ahayn dagaalka lagula jiro maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab haddana ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dhabarka ku ritay in ay howlgalka duufaanta aamusan deegaano istiraatiiji ah kaga saaraan maleeshiyada Al-Shabaab. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena Udub Somali TV saaxiibayaal waanaga intaa daawaday. haddii aad janaalkeena Udub Somali TV aad ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, like iyo share iyo comment waa dhankiina. waa mahadsantihiin. amaan Allah.